السلام عليكم. magacayga waa Cabdiraxmaan. sababta aan u sameeyay video-gan waxay tahay biogas technology. Biogas technology ma technology cusub. Waa technology soo jiray 500 sano ka hor balse aan ku badnayn wadankeena Soomaaliya. Inta website aan fiiriyay ma arkin wax ka wada xarakaadka biogas technology wadankeena. Marka hadda waxaan rabaa inaan isku tijaabiyo habkii aan ugu baraarujin lahaa sidii aad technology-gan u sameyn lahaydeen aadna uga faa'iideysan lahaydeen faa'iidooyinka badan oo uu leeyahay. Biogas wuxuu u baahan yahay oo kaliya saxarada lo'da, geela, mise ariga, mise waxyaalaha ka soo haray jikada sidii cuntada la soo hambeeyo oo la shiiday, mise cuntada qudaarta oo la jarjaray sida qubka mooska, liinta, cambaha, iyo wixii la mid ah. haddaad waxaas qaadid aad ku shubtid container aan hawo galaynin aad siisid muddo waxay kalifaysaa in bakteeriyada ay waxaas cunto ayna gaas samayso. gaaskaas oo uu ku sahlinayo in aad cuntada ku karsatid beddelka isticmaal lahayd dhuxul mise waxyaalo kale. haddana waxaan rabaa inaan tuso habka ugu sahlan ee aad ku samayn kartid anaerobic biogas digestion. waxaad u baahan tahay container sidan oo kale ah mise kan mid ka weyn. waxaad kaloo u baahan tahay caagad ayadana biyaha midda 1 litir biyaha laga cabo 2 xabo ayaad u baahan tahay. waxaad kaloo u baahan tahay ayadana caagad yar oo sidan oo kale ah. systemkan habka aad u hagaajinaysid waxa weeye in aad ka soo gelisid meel ilaa dhexdhexaadka aadna ugu ekaysid ilaa dhexbartamaha. sababtoo ah insha Allah video-ga dambe ayaan ku explain karin doonaa. midda kale ayadana muhiimka aad u baahan tahay waxa weeye meeshii uu gaas ka soo bixi lahaa. ilaan hadhowti markaad meeshan saa u xirtid meeshan kali ayuu gaas ka soo baxaya. meeshaasna wuxuu gaaskaasna waa inaad haysatid meel aad ku keedisid gaaska. habka ugu sahlan ee ku samayn kartid saasna waa in aad isticmaashid bac sidan oo kale ah aan holo geesaha kaga dhadhijiyay. meeshana uu ahaa meeshii gaaska uu ka soo galayay, meeshana uu yahay meeshii gaaska ka soo bixi lahaa oo hadhowti ku sahlinaya in aad tijaabisid gaaskaas mise aad ku xirtid meeshii stoofka. insha Allah video-ga dambana waxaan tusi doonaa habkii aan systemkan ugu shubi lahayn saxarada lo'da aan u sugi lahayn muddo 3 week ah ana fiirin lahayn gaaska ka soo baxay waana tijaabin doonaa. marka hore waxaad u baahan tahay in aad saxarada si fiican isku dhex qastid oo aad ka dhigtid sidii soo aan geel ugu daro yeelanin wax adag ay noqoto sidii mushaarica daartid. habeen hore ayaan waxaan ku shubay biyaan la dhigay si ay u noqoto ilaan xarka saxarada faraska aad ayay u adag tahay marka biyo ayaa la dhigay si ay u noqoto si ay u jilacdo. maadaama aan saas sameeyey ay saa u jilacday balse markaad meesha digestka ku shubaysid waxaad u baahan tahay biyo. biyahaygana waa kuwana waxaana rabaa inaad ugu 1 pot biyo 1 pot saxarad si ay u noqoto half iyo half. for example haddaad ku shubtid 1 kilogram oo saxarada faraska waxaa u baahan tahay inaad ku shubtid 1 litir biyo si ay u noqoto marka hadda ma haysto waxaan ku cabiro waxaan iska isticmaalayaa qiyaasta.
intaas waxaan u maleynaa inay ku filan haddana waxaan ku daraynaa biyihii kulula maadaama aan joogo meel aad iyo aad u qabow. digesterkana habkaas ayaad ugu xiraysaa. habkaas ayaad ugu xiraysaa. hadda waxaan doonanayaa buris baan doonanayaa si aan meesha geesaha si fiican ay u xirmato aysan wax dabeelna u gelin. waad mahadsantihiin videogan aad daawateen. waxaan sugaynaa hadda muddo 3 week ah. waxaan fiirin doonaa gaas ka soo baxo inay meesha buuxisay in kale. markaasna waan tijaabin doonaa gaaskaas inuu shidmanayo iyo in kale. fadlan la socda qaybta 3aad ee videogan. markaasna waxaan si fasiraynaa mise si sharaxaynaa science ka dambeeya iyo habka u shaqeyso digestive systemkiisa oo dhan. waad mahadsantihiin. haddaa fiirsatay video 1 mise video 2 video 3 waxay qusaysaa habkii aan ku tijaabin lahayn gaaska dhashtay digester. balse intaas gudagal waxaan rabaa inaan wax ka cudur daarto digesterka hore aan ku sameynay video number 2 inay suurtagal weysay balse mid kale aan hagaajinay oo ka wasii fiican bakii hore cilado la xiriira daraaddeed insha Allah aan inagu si sheegi doono ciladahaas video kale aan ka sameyn doono. balse hadda waxaan hadal inagu daarin ila daawada habkii gaaska uu ku shaqeyn lahaa. marka hore digestion waxaa ku jiro saxarada lo'da iyo biyo kale. bacdan waxaa ugu xiray sababtoo ah inaysan gelin wax iftiin ah because iftiinka oo u darantay bakteeriyada. digesterka hadda aragtin wax simple wuxuu ka gooyn wax simple ah waa caagad oo tuubada meeshan aan kor uga dhijiyay iyo valve-kii meesha gaaska laga tijaabin lahaa. marka hadda ila daawada gaaska inuu shidmay in kale. bismillah. وكاسا الحمد لله كاسكو ujeedaan wuu shidmay. wax meeshan kaliya ku jirana waa saxarada lo'da iyo biyo kaliya aan ku shubay. marka wakaasa ujeedaan gaaska waa light blue waa sababtoo ana waa gaas nadiif ah uu ka duwan yahay gaasaasha kale. marka ujeedaan fadlan ka faa'iideysta gaaskan. faa'iidooyinka badan uu leeyahay especially meelaha tuulooyinka ee dhuxul mise geeda la isticmaal lahaa. systemkan ayaa samaysan kartaan. waana system aad u sahlan samayskiisa. haddana mar kale ayaan shidayaa. labada dabna isku mid ma aha. kan waa kii caadiga dabkii caadiga kanna waa ujeedaan siduu yahay. wakaasa marka fadlan ka faa'iideysta dadka kalena uga faa'iideeya. waad mahadsantihiin.